kulankani ballaaran oo maanta ka dhacay hoolka shirarka dowladda hoose degmada Celifina gobolka Sanaag ayaa daarnaa dhexdhexaadinta wejiga koowaad ee nabadeynta laba arda oo wadaaga dirir ku dhexmartay deegaanka Fadhigaab waxaana shirkan shir gudoominaya barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cusmaan Xasan taliyaha qaybta gobolka Sanaag iyo waliba maamulka degmada Celifina gobolka Sanaag waxaana ugu horreynba halkaasi ka hadlay furana shirkan barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cusmaan Xasan taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag iyo waliba maamulka degmada Celifina iyagoo dhamaantoodba kula dardaarmay labadan arda sidii heshiis waara uga gaari lahaayeen nabadeynta deegaanadaasi fadhiday hawlo badan ka qabatay kana maanta ay noogu ballansanayn in la dhamaystiro wixii hadhanaa la dhamaystiro in la dhamaystiro si maxaan ku raahdaayay beelihii walaalaha ay isdhalay ee qoyska kaliya isku ahaa halkoodii loogu soo celiyo imikaba waa qoys kaliya waa dad walaala ah laakiin waxoogay baa yara yaala waxa maanta idinka saari kara maanta waa gogoldhiga iyo furitaankii uu kulay cid maqan ee u dambaysaana in maanta soo galay uma filaya taa idinka sheegi doona laakiin aanu ballantii hore aan ka duulayay in ku ballanay shirkaas maanta inuu furmo shirkii maanta waa inoo furan yahay odayadana intii ugu weyneyd ee reerka maxaan ku raahdaay mas'uuliyadda ay soo dhanay ee halkan aad ku fadhidaan waxaan idinku dardaarayaa inaad ku dadaashaan walaalaynta labada beelood waxaan idinku dardaarayaa inaad maxaan ku ka fikirtaan ilmaha dhalan doona iyo ka nool maanta inuu nabadgeliyo iyo walaalnimo iyo isjacayl ay ku wada noolaadaan cid kastoo xafladan maanta shirkan ka furmaya degmada Ceelofeyn ee labada beelooda ee Axmed Faarax iyo Jibriil Xasan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaadiinta iyo cuqaasha iyo dhammaan dadkan horteeda fadhiya labada reer uga mahadcelinaa sida u soo ajiibeen ballantii halkan lagu galay sidii ummadda walaalaha ee meel ku wada nool xaaladdu ka dhex jirto sidii nabad looga dhex samayn lahaa waxay isu sheegan lahaayeenna aqoon-yahankooda iyo salaadiintooda iyo cuqaashooda iyo waxgaradkooda ugu dhammayn lahaayeen waxaan mar koowaad iyo mar labaad ba idinka hambalyaynaa si hawshaa ugu soo diyaargaroodeen waxaanu jecelnahay in arrintan nabadgelyo lagu dhameeyo waxaanu jecelnahay wixii hore uga dhacay labada beelood inaanay dib u dhicin iyo xiriirdii nabadgelyadii beelihii walaalaha ahaa ee shaqaaqooyinku halkan ku kala gaadheen isdabaraacintoodii iyadoo lagu dhammaystirayo goobtan waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inay fusho oo hirgasho oo insha allah way hirgelaysaa ay dhammaato sidii kuwii horeba u dhammaadaan loo dhammaystiro haddaan nahay ka maamul ahaan aad iyo aad baan ka mahad celinaynaa kulanka ku soo ajiibteen ballantii ahayd in afraatan lagu yimaado ku wada timaadeen dhammaantiin idinkoo isu dhammaystiran isu aan moodo in wejiyo nabadgeliyo iyo caafimaad ka buuqdo la timaadeen aad iyo aad baan ka mahad celinaynaa labada beelood waxaanu soo dhaweynaynaa oo aad ugu mahadnaqaynaa barasaabka gobolka sidaa oo isugu yeedhay labada beelood ee walaalaha ah waxaanuna idina kula dardaarmay maanta halkan dardaarnaya ducaa yaalla labadiina suldaan ee suldaan Siciid iyo suldaan Cali Cumar dadka nabad u doona waxaa ka mas'uultiin dad reer miyi badan waxaa ka mas'uultiin dad tiro badan nabadda wax ka wanaagsan ma jiraan sidoo kale labada suldaan Siciid Yuusuf Xaaji Ducaale iyo suldaan Cali Cumar oo ku hadlayay afka labada arda ayaa soo dhaweeyay shirkan sheegana inay diyaar u yihiin xidhiidhka nabadgelyada labadan arda waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inuu igu simay in labadii reer ee Jibriil Xasan iyo Axmed Faarax aan iyagoo nabad oo iyagii hor fadhiya ilaahay uu gaarsiiyay haddaanu nahay beesha Axmed Faarax waxaanu diyaar u nahay oo aanan ku kala qaybsanayn inaanu soo hor fadhiisano iyadoo aan la khasbin oo anaga ikhtiyaarkayaga ay tahay inaanu soo hor fadhiisano beesha Jibriil Xasan xalilno oo daacad ka nahay wixii naga dhaxeeyay inaanu ku dhamayno wanaag ayaanu anagu diyaar u nahay wabillahi tawfiiq waxa inta ay raaca maadaama maanta uu dafuritaan yahay وان هذا الكلام اللي قال إن سيد وانو أنا كل ما أقول هذا الكوياني
suldaan siciid wuxuu yidhi haddii aanu nahay beesha axmed faarax nabadgelyaannu u fadhinaa halkanna u nimi in ay na dhex marto annaga iyo beesha jibriil xasan waa hadal aad iyo aad iyo aad u wanaagsan waa hadal aad iyo aad iyo aad u wanaagsan ومحمد سويت التلفزيون قرن كسوماليلان علفوين